bismillah alxamdulilah marka ugu horeysa aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa bahda s b c dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel walbay joogaan gaar ahaan shacabka reer puntlandna waa salaamaya shirweynaha nabadeynta labada beelood ee walaalaha ah beesha muuse saleebaan iyo beesha cali saleebaan ee ka socda magaalada dhaqanka ee qarbo caasimada gobolka karkaar aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaana si gaar ah aan ugu hambalyeynayaa boqor burhaan boqor muuse oo gogosha dhigay nabadeynta tan iyo shirkanna abaabulay iyo labada beelood ee walaalaha ah ee sida muggale u ajiibay ee dhaqan ahaan iyagoo dhammaystiran kasoo qaybgalay oo ay kala hogaaminayeen beeldaaji maxamed beeldaaji ismaaciil maxamed beeldaaji axmed iyo dhammaan waxgaradkii iyo cuqaashii la socotay iyo culamaa udiinkii iyo dhaqankii reer puntland ee dhammaan halkaa kasoo qaybgalay aad baan ugu hambalyeynayaa waa gartay maxaa isbedelay bay kula tahay marka muddo badan baa shirar noocana la qabtay oo labadan beel lagu heshiisiinayay kadibna dee aysan noqon wax miro dhalay oo colaaddii ay dib usoo laabatay maxaa xilligan isbedelay bay kula tahay oo uu kaga duwanaan karaa shirkan aad baa horta umahadsan tahay waa runtaa shirar badan oo shirka 22 bishan furmay ka horreeyay baa jiray iyo isku dayo badan oo anigu aan ka qayb galay oo uu ugu dambeeyay shirkii aan ku qabanay magaalada Darjaalle ee gobolka Bari ee labada beel ee walaalaha Muuse Saleebaan iyo Cali Saleebaan la isugu keenay iyo shirar badan oo ka horreeyay intaba waa ay dhaceen waa run natiijadii la rabay marna lama gaarin mar walba qadiyay ahayd iyadoo aan dhamaystirmin baa wuxuun soo kala dhex gelayay maantay waxaan malaynayaa in mugle oo dhammaystiran in loogu kacay oo aan loo kala harin waxgaradkii iyo dhaqankii reer puntland oo dhan uu hogaaminayo boqor burhaan boqor muuse wax walbana waxa ay leeyihiin wakti ilaahay subxaana watacaala uu ugu talagalay inay soo afjaranto waxaan malaynayaa marka aanoo xog badan ka haya labada dhinac labada beelood ee walaalaha ah shariir badanna labada dhinacba la leh maanta inay si mugle ugu diyaar garoobeen ogaadeenna colaad inaysan soo kordhin karin waxaan dhibaato ahayn dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashaa hore loo yiri arrimahaas oo dhan marka waxaad moodaa inay soo kordhin karaan waayo aragnimo ay dadku ka kasbadeen colaadii soo jiidantay muddada dheer soo socotay marka waxaan oran karaa waxay uga duwan tahay bisayl dadku ay gaareen iyo waxgaradkii iyo dhaqankii deegaanka oo dhan oo si mugle arrintasan uga qayb galay dhinaca hoggaanka dhaqanka oo kale gaar ahaan beesha adigu aad ka soo jeedo oo qaybna ka ah gogashan hadda la fidiyey isbeddel baa jiray oo dhowaan beeldaajo cusub ayaa loo caleemo saaray isaga dhinaciisa muxuu ka bedeli karaa bay kula tahay in beeshaasi laftirkeeda ay xaqiijiso in heshiiska ama wixii halkaasi ka soo baxa ay noqdaan kuwa miro dhala aad baa umahadsantaha su-aal muhim ah beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil waa beeldaaje dhalinyaro ah aqoon-yahan ah islamarkaana waayo aragnimo ku filan u leh hoggaanka dhaqan ee maanta shirkeeda uu qabtay waana nin diinta iyo aqoonta maadiga labadaba alxamdulilah heer fiican ka gaaray waxaa aada loogu rajo wen yahay inuu ilaahay idankii kulankani wuxuu noqon doonaa kulankii ugu horreeyey uu la wareegay xilkaa beeldaajnimada reerka cali saleebaan kulankii nabadeyn ugu horreeyey uu ka qayb galo waxaan marka aada loogu rajo wen yahay inuu ku guulaysan doono dhinacyo badan marka laga fiiriyo